waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada maalin cusub iyo wellness with Ikram. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba caado ama dabeecad ay dadka qaarkood um, ay u barteen, laakiin labadaas caado darteeda ama shay dhibaatooyin badan ay kala kulmaan, oo waxaa stresska badan noo keena dadka iyo walwalka iyo walbahaarka iyo ciilka xanaaqa maalintii dhan waxa waaye dhaqankaas dartiisa. Midda koowaad waxa waaye eeda badan. Dadka eedaan oo maanta dhan waxay iska dhigayaan masluum inay yihiin, oo waa lay yeelay, waa lay dilay, waa lay xumeeyey, ani waa u fiicnaay, halihii asxaan aan u qabtay. Qofka dhehaysa maanta dhan oo dadka ku sheeganayso oo waxaas ma ka filanaynin, waxa asxaana u sameeyey ama waa u roonaa jiray iyadana ma ii roonaanin dhahayaan. Dadkaasita dadka waa ka dhib badan yihiin, waa ka stress badan yihiin, way ka walwal badan yihiin. Maxaa waaye waa ka xanaaq badan yihiin because markasta naftooda waxay u arkaan inay iika dad fiican yihiin oo dadka kaleeta ay xun yihiin oo iyaga lagu taagsado ama la xumeeyo ama loo rooneen. Walwal iyo walbahaar iyo xanaaq iyo cuqdad kama baxdo dadkaasito, and qofka naftiisa uma fiicna dhibaatooyinkaas badan. Maanta dhan qalbiga haddaa wax ku haysatid oo ku ceshanaysid oo dad la eedehaysid oo qof kasta kor u fiirinaysid, dhibaatay leedahay. Qofka labaad waxa waaye qofka oo waxa suubiso waxaan comparisonka ama dadka kale isku barbar dhigto. Heblaay waxay haysataa ani ma haysti, hebelow waxaas u haystaa aniga ma haysti, hebel waa iga shahaado weyn tahay, hebel wuu iga cilmi badan yahay, hebel wuu iga guri quruxsan yahay, whatever waxay noqotaba. Dadkaasna dad kale oo dhiban waaye. Iyagan dhibkooda hataa heer oo wuxuu geynaa gurigooda oo kusoo noqdo because caruurtooda waxay ku barbar dhigayaan caruurta kaleeto. Cunugooda waxay dhahayaan hadhooti walaalkaaga kaa fiican, ama walaalkaa 100% oo keenay 90 maxaa u keentay, ama in adeerkaaga fiiri. Cunugii haddana waxay ku abuurayaan qofkaas cuqdad iyo xanaaq. Cunuga hataa wuu rajo beela ku dhacaya, wuxuu dhahaa ani wax kasta aasubi ma u fiicnaanaye, maxaa u dadaalaa marka, maxaa isku dhibaa. Heero wuxuu gaaraa xanaaqaasayta xataa caruurta kale oo guriga joogto inuu garaaco ama la dagaalo iskoolka, maybe inuu dadka ogala dagaalo because cunuga kalsoonidiisa ka jijibinayaan. Waxay dareemaan cunugi inuu dadka ka liito, maxaa isku dhiba isku daalina waaye. Dadka saas sameeyaan waxa waaye weligood dad oo nasanaynin waaye. Weligaa adi haddaa kor lee fiirinaysid iyo qofka kale maxay haysataa aan adiga haysanin, dhibaato kaama dhammaanayso. Sheeko yaran ku sheega. Naagaa waxay dhahda ninkeeda, hebelow heblaaye markay dhimatay ninkeeda masjid u gaday oo magaceed u bixiye sadaqa jaariya camal. Aniga markaan dhinta maxaa ii gadaysaa ama maxaa ii suubinaysaa. Markaasoo ninkii wuxuu yiri dhulkii waan gaday, adi dhimashadaada la sugooyaaye markaas oo masaajidka anaa ku dhisaaye. Heerkaas sheekada waxaa ka garanaysaa qofka ferab oo noqona, qofka wuu daala. Marka maalin kasto dhahdid hebel waxaasoo naagtiis u sameeyey aniga maxaa ii suubisay, iyo heblaayo waxaana loo gadani maxaa la ii gaday, wuu kaa daalaa qofkaasayto. Qofka oo maalintii dhanna dhehayso dadka la eedeynaysa iyadana waa la nacaa because maalin kasta cabaad iyo eray iyo buuq qof jecela iska yar inay dhageysata oo u adkeysan karto. Marka waxaan rabaa inaan soo jeediyo ama aan kula taliyo haddii aad dadka dabeecadaas qaba tahay, aad important u tahay inaa is ilaalisid. Ilaali because ma aha dadka dartooda ha u sameynin, naftaada u samee because adaa dhib qabtid. Qofka ugu dhiban waxa waaye adiga. Adaa xanaaq u kaa bixinin oo ciil kaa bixinin oo weligaa meel gaaraynin oo stress ku jirtid oo heer waxaa gaaraysaa inaa isla hadashid. Markii kale haddii asaas ku sii socotid, Ilaahay wuxuu dhahay wabashir saabiriin, bishaaray dadka kuwa sabraan. Sabar wax kasta oo dhaco inaa loo sabro waaye. Waxa waaye markii oo haddaa dadka eedeysidne mas-uuliyadaada qaado because qof oo waxa ma tihid qofkii imaado ku kor soconayso meesha adi is dhigtid waaye oo lagu kor socona. Adi haddaa iskool isku qaadid oo mas-uuliyadaada qaadatid oo dadka xaqooda siisid, waxa waaye
qof oo power lahaa tahay, qof oo awood lahaa tahay, qof oo waxa ma tihid kelmadii maxay ahayd aan raadinay, qof oo wax samaysan kartaa tahay, yacni qof daciif ah ma tihid oo daciif ha iska dhigin. Wax xataa situation kasta aad la kulantidna haddii aadan wax ka qabanin go'aan aad gaartay waaye, haddaa wax ka qabatidna go'aan aad gaartay waaye. So labada jeerbo wax waa isqabanaysaa, it's just waxaad dooranaysaa inaadan waxba ka sameynin mawduucaasayta oo maskiin iska dhigtid oo mazluum iska dhigtid oo waa lay xumeeyey dhahdid maanta dhan. Haddii aa istaagtidna oo qofka positionkiisa iskaga celisid waxaa ka qabatay oo qof oo power lahaa iska dhigta marka oo waxa ahee oo waa is adkayse. So another kugu soo dheereynin waxa waaye waxaan rabaa inaan dhaho haddaad tahay qofka oo dadka eedeynayso ama qofka oo dadka isku barbar dhigaysa maanta dhan oo fiirinayso qof kale maxay haysataa, is ilaali. U fiirsa markii aa waxyaabaha suubinaysid ama dhaqankaasayta aa ku dhaqmaysid. Waxaa kaloo fiirisaa why aa ugu dhaqmoosaa, maxaa raadinaysaa. Marmar waxaan dhahnaa waxaa jira wax oo secondary gain la dhaho, qof kasta wixii ay ku dhaqanto faa'iida ugu jirto, waxa iska sameyn leh uma suubino. So waxa miya attentionkaas ma rabtaa, waxa ma rabtaa maanta dhan inaa madax lagu salsalaaxo oo lagu dhaho maskiin waa heblayaa la xumeynin iyo la taabanin. Waxa ma rabtaa inaa ninka wax ma is leedahay haddii maamooyinka camal hooyada kasoo qaba ama aabaha oo cunugiisa dhahayo waryaa hebelaa kaa fiican, xumaan kama wadaan, fiicnaanay ka wadaan, waxay rabaan wiilkooda inuu fiicnaado, ha dadaalay isdhahooyin. Dhiirigelintiyaaba saas ka noqote, laakiin marmar waxa waaye way it could fire back, yacni way cunugii si qalada u qaadan karaa hadalkaas badan oo markasta la dhahayo hebelaa kaa fiican, and then instead of oo dadaali lahaa aa isdhehaysa cunuga ha dadaala ha fiicnaado, waxuu actually wixii dhan oo banici karaa, waxbarashadii iska dhaafi karaa, gurigii oo nici karaa, adigoo ku nacaa, walaalihiisoo nacaa because markasta ikaa ka fiican wuuna wuu gaarsala yahayba. Marka waxaan rabaa inaan dhaho anyway qof kasta oo dabiicadaas qabta ama waxyaabahaas camal ku dhaqanto inay is ilaaliso, isfiiriso markii waxaasayta ku dhaqmaysa ee is celiso ee ka fikirto why aan waxaan u sameynayaa, bedeshaneh dhaqankaasayta because dhaqan fiican ma aha, dhaqan oo dhibaatooyinkeena waaye. Sida aan ku dhahay qofka ugu horeyso oo dhibkaasayta la kulmaysa adiga waaye, maaha dadka dhinacyada joogaan because qof kasta oo dhinacaaga joogto runtii kuma qasbana inay ku ag joogto, way kaa soconaysaa. Eeda haddii lagugu nooc waa lagaa tagaa waaye, maxaa i qasba heblaaya inaan ag fadhiyo waaye. Maanta dhan haddaad dhehaysid dadka isku barbar dhigaysid, ninkaa uu ku naca wuu kaa tagayaa, caruurtaada kasoo horjeysanayaan, saaxiibadaada hataa waxay dhahayaan heblaayo waxa waaye ama hebel qof lala dhaqmi kara ma aha, oo maanta dhan waxaa lee fiirihaysaa hebel muxuu haastaa iyo hebel maxay haasataa. Sida aan dhahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri ubashir الصابرين وبشر المؤمنين. So sabra hala sabro insha Allah, si oo ilaahayna oo waxa barwaaqadiisa inoo soo gaarto. Waa intaas iyo wal nasbad ikram. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.